kasoo bilaabay yaraanteeda xaafadeed kadib dugsi hoose dhexe kadib dugsi sare waxaan kaloo u soo ciyaaray ciyaarihii dugsiyada sare kadib degmooyin anoo u ciyaaray degmada Yaaqshiid kadib waxaan ku biiray ciyaarihii gobolada xilliga ugu dambeeyay ciyaarihii gobolada kadib waxaan ku biiray naadigii MBC madbacada oo aan juniorkeeda noqday koox Faynus la yiraahdo ayaan u ciyaarayay oo aasaasyaashii aan kamid ahay ilaa iyo muddo waxaan u soo ciyaaray 93 ilaa iyo 99 kadib waxaan ku biiray naadigii Elman oo muddo ilaa 2006 aan u ciyaarayay markaas kadib maasha Allah qarankan waxaan ku soo biiray 97 qaranka Soomaaliyeed ku soo biiray ilaa iyo 2006 iyadana intaan macna ciyaaraha aan joojinay qaranka Soomaaliyeed aan kamid ahaa kadib waxaan noqday macallimiintii wadanka oo aan ka soo bilaabay degmada Yaaqshiid inaan u soo noqdo macallinkii degmada Yaaqshiid finalkan ay iga qaaday degmadii Dharkanley kadib waxaan qabtay kooxdii Jamhuuriya oo aan horyaalkii Serie C aan u soo qaaday oo Serie B ay ku soo biirtay kadib waxaan macallin u noqday naadigii Badbaado oo iyadana laftigeeda B ahead aan Serie A keenay kadib waxaan ku biiray oo aan qabtay naadigii Elman aniga macallin Yucali labada sano ugu horeysay garoonka jaamacadaha alxamdulillah waxaan ku guuleysanay labadii sano oo garoonkaas lagu ciyaaray inaan horyaalkii aan noqono kadib naadigii Elman waxaan kaga biiray kooxdii gaadiidka 2013 horyaalkaas oo aan macallin u ahaa 2016 iyo 15 waxaan waday naadigii Saxafi kadib waxaan ku biiray naadigii Heegan oo aan la shaqeeyay macallin Gidaamo kadib waxaan ku wareegay naadigii Horseed oo aan sanad la joogay aniga macallin Cali Bow markaas kadib waxaan ku soo laabtay in aan heerka hoose haddana aan soo dhiso si ciyaartooy yar oo da'yar ay u soo baxaan waxaan marka niyeystay in aan soo abuuro dhalinyaro yar oo si ay macnaha kooxii wadanka ay ugu faa'iideystaan ana oo macnaha raadinayo inaan ciyaartooyda dhismahooda inaan magac ku yeesho alxamdulillah wayna ii suurtooday dhalinyaro badan oo hadda kooxaha naadiyada Serie A kamida ayaan soo saaray
markaas kadib ayaan kooxdii Serie C Soomaali Furt ayaan macallin u noqday oo ilaa hadda aan la joogaa alxamdulillah waxaan noqday macallinkii labaad ee qaranka ee 2012 Sakaafa macallin geela macallinka ahaa iyo 2011 and 17 aan la shaqeynayay macallin Fareer macallin second aan ahaa alxamdulillah hadda ilaa haddana qaranka ayaan ka tirsanahay iyadoo saas ii dheer tahay ayaan haddana markayga hore ka soo baxay iskuul lagu barto culumta isboortiga kaas oo Physical Education Sport Institute ku yeelay dugsiga sare General Daoud iyo dhexe ayuu u dhaxay iskuulkaas ayaan ka soo baxay oo isboorti culum badan aan ka soo bartay kubadda cagta kubadda kolayga handball biingaha vooliga orodada bootinta intaas iyadoo aan ka faa'iideystay macallimiin iskuulkaas wax ka dhigi jirtay sida macallimiin ajnabi ah joogi jirtay oo macnaha fasalada marmar xisooyinka bixinay oo dhinaca isboortiga kaas aan ka soo baxay aan ku sheegay ayaan intaasba aan lagu baray ka soo bartay sida ciyaaryahanka markuu jilibka ka dhaawacmo kale dadka qaarkood way iska ordaan oo meelahaas iska aadaan laakiin exercise ayaa jiro oo jilibkaas lagu sameynayo sababtoo ah waxaa dibcayo seedihii ya xididadii wixii dibcayo marka in la soo dhiso ayuu baahan hadda boqolaalo ciyaartooy ayaan alxamdulillah aan u sameeyay jilibkaas oo exercise aan u sameeyay shaqadan physiotherapy-gaan waxaan ka soo bartay macadkii aan hadda aan ku sheegay aan dhiganay sababtoo macallimiin ajaanib ayaana bari jirtay qaabka ciyaaryahanka markuu u dhaawacmo sida loola tacaalo okay massage-ka laftigiisa qaabab loo sameeyo ayaa jirto iska sameey ma marka alxamdulillah qaranka Soomaaliyeed waxaan jeclahay intii aan noolahay in aan u shaqeeyo u adeego qaybtaasna aan macnaha aan ka qaad sababtoo ah waa iskuulkii aan ka soo baxay oo ahaa Physical Education Sport marka alxamdulillah waxaan ugu faa'iideynaa qarankayga Soomaaliyeed ee ciyaartooydii kooxaha laftigooda wixii dhaawacaas uu ku yimaado marka alxamdulillah ma sha Allah waxaan u hambalyeynaa mar walba xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta oo aabo uu yahay Ali Cabdi Maxamed Calashiin oo ah nin ma sha Allah oo degan isla markaasna guddigiisa fulinta la shaqeysan ay yihiin rag dad dhalinyaro ah marka ma sha Allah waxa mar walbo aan garab taagnaanina insha Allah qaranka Soomaaliyeed